تقيفني والله وأنا كنت أروح معي سنوات daawadayaal ku soo dhawaada filim dokumentary ah oo aan idinka soo diyaarinay sixir bararka iyo sidoo uu aafeeyay bulshada danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland. Filimkeennan oo aan ku soo qaadan doono muuqaallo badan oo naxdin leh dad badan oo uu aafeeyay sixir bararku oo xidhay albaabada. Haddaba yaa ka mas'uul ah sixir bararkan aafeeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sideese looga bixi karaa xilligan. إفراح باشي وهو يله شن عرورة وحي كميد تهي 1 مليون iyo dheeraadka qof ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo uu saameeyay sixir barar taabtay dhammaan adeegyadii bulshada. sixir barar horta wuxuu noo saameeyay saacadan shicibka qole wixii oo dhan wada saameeyay wixii si yar dayar tahaan aad buu si saameeyay waayo mar waxa jirta qofku 10 haystay wuxuu jiray maanta aan u jirahay fosida biyaadi markaas waxa lagu shub jiray 6 imkana heer gaadhin aan la nooba shubinba oo booyadii diideenba waxa walahi sixir bararku aad buu noo saameeyay wixii tayara qoyskan waxaanu ku booqanay guriga ay degan yihiin waxay Ifraax Baashe oo ah hooyada qoyskani noo xaqiijisay inaanay maalintan aanu booqanay wax cunto ah aanay karsan haba yaraatee iyadoo lacagtii biilka ahayd waxba u jari weyday markii ay booshariga la tageen arrintaasi waa mid dareenkayaga taabatay walahi anagu sidaan u noolay wadee noloshu iska adag yaanku qodaya fadhiyo weeyaan maxay haydeen doodaygu horta wax amala maba hayaba dad waxa jiray wax laga soo geli jiray nimkana aan laga soo gelin isaguna dad wixii noo soo heliya xubuu noo tirwaay wax ay goynayaanba baba jirtay foostida biyaa xitaa inay ku filan karin baa jiray walahi anagu noloshu aad bay noogu adagtay way adagtay nolosha maanta aan ku jirno sixir barar ballaaran ayaa aafeeyay dhammaan adeegyadii bulshada waxaa cirka isku shareeray qiimihii raashinka shidaalka iyo maciishadii kale ee daruuriga ahayd dhinaca kale waxaa dalka aafeeyay abaaro ba'an waxay arrimahaas oo dhammi dhaliyeen in dadkii danyarta ahaa noloshu ku adkaato haddii aad dhex marto suuqyada magaalada Hargeysa waxaad arkaysaa dad badan oo cabanaya cadaysan ama fikir meel la fadhiya taasina ay sababayso nolosha cidhiidhiga gashay ee uu sicir bararku koow ka yahay shubkii bariisa waxa lagu yiri bakhaarka markii uu yaalay 120 qoyska xaaska ahayno 10 cisho kariya adduunki biyo ma haystaan dawladdu waxa naga may soo gaadhin cid kale oo maanta nacaawso waxba naga may soo gaadhin de baqti baanu nahay dad badan baana nala mida ganacsato aanu la kulannay mar aanu wax ka weydiinay sababta keentay sicir bararka waxay qaar noogu jawaabeen in sicir bararka aanay garanayn meel uu ka yimi qaar kalena umaba arkaan arrintan qiimo kororka inay tahay aafo qaran balse waxay ka doorbidayaan ganacsigooda arrimahaasi markaad u fiirsato ma aha wax sal iyo raad toona leh oo lagu sababayn karo maciishadan kor u kacday ascaartan imika kacday horta soobaheega dee wax xagga min allaahida ka imanaya haddana de waxaynu caalamka la qabno magaaladuna runtii dadka xagga dhaqaalaha dadka dhaqaalahooga aad bay u hooseeyaan danyartu aad iyo aad bay ugu liidataa meeshan maxaa ma iibsan karto dhinaca kale waxaan isku daynay inaanu la kulanno madaxda wasaaradda ganacsiga siiba wasiirka balse way noo suurtageli weyday inaanu la kulanno intaa kadib waxaanu isku daynay haatan codka dareenka xambaarsan ee dadweynaha inaanu soo bandhigno maadaama saxaafad ahaan waajib weyn uu naga saaran yahay maciishadu halkay maraysa dawaynu wada ognahay waxaweyaan dee dadkii danyarta ahana hadalkiisa badaaba
حوين أنا وهرورك يا رب خدا وحودنا كنا كسر بحياة نيبين شرنا قد بدأ هرور كي مركي ورا وحياة هاي كونتون ما أنت أنا بقول يو كونتون بيمرسا تواد قرن كرتا فرق أو دحية قف دنيره وما أنت شان كنا ملح كنا شلين ده سوق كسر لتشري وقالان هرور هذا وكسرها قالان كي هرور كما قضى نقنسا مقرع من نقنسا ما حشي نقنسا أدونك مثل اليوم جاي التلفزيون كل مقلوب يروح ما كردي أو عنان نقبتي أو ضلك يسكدوا بي يعني كهذا البحر ما هاين اليوم قال لك السؤال أدونك بقى حكى على الجروبي أو راسي كانت هيصدق ما تدع عنان لقوا قبته وشاهد لي متاس كلمة حكمة أنا معها وحن كهذا نكن أن لقى صوصين إيش قال لك كوسو يبسن راسي كي هراها ساكن يجلس حرب برك إنه قوكعي ما تدي عروتي نقعنا قبطينية وحولنا وحلقة قبته waxaanu ka cabanaynaa shidaalkan maalin walba maalin ka dambaysa sii kacaya iyadoo qeyran macquul tahay oo aanan qaadan karaynin maalin kaliya oo foostada shidaal ahayd ay $260 ay ku kordhaan waxa wax lala yaaba sixir bararka inta leeg ee maalin walba soo food saaraysa ummadeena danyarka iyadoo dadkii aanu qaadaynay ee naga kireysanay gawaadhiduna aanay qaadi karayn nooligii hadii aan ku kordhino iyadoo marka hore aan qofka ka qaadaynay 30,000 oo shilin maanta dadkii naga ma aqbalayaan hadaan ku naano 40,000 oo shilin baan qofkii ku qaadaynaa anigu nin laafaa baan ahay ciidamada ayaan ka qaataan yaroo lacaga oo gurnaa intii yareedeen qaadanayay wax maanta ay ii goysaa meeshii ma jirto هرور بان كرجع سري وبدل أوكي هاشين كنا صوب حي وبدل عن سري ما أنت وإيه قوي وإذا هرور اللي بان أحمر يا معيشتي يقول فلان مجران وبتقول هو السيارة عفورة يهو يدود مركا أنا أقول بابا أصير هذا دمير بابا وحكي رقعنا يكوي أو وحبق قاعدين هنا كسي درنبا وين بابا يوم مدي تاسواتا مركا إلهي وحكي بريء فرش كم فرش كي ونكسن إنه ينوفرو تنيرتنا إن دقارة للسيو mid dawladeed iyo mid tijaareedba tijaartana aad iyo aad wax lagu codsanay bal dadkan hadday maanta dhammaadaan halkii wax ka iibin lahayn dib ma u fikirayaan inay dib u fikiraan daawadayaal filimkeenan dokumentariga ahi wuxuu ka tarjumayaa nolosha dhabta ah ee ku sugan yihiin dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa haddaba daawadayaal sidaad u socotaan waxaa suuqyada caalamka ka kacay ascaarta laakiin may ahayn in dadka danyarta ah ee ku naqan waddankan faqiirka ah ascaarta sidan qeyrxadka ah kor loogu qaado waxaa la gudboon xukuumadda iyo baayac mushtarigaba inay dadkoodan danyarta ah hoos u eegaan dhinaca kale waxaa dadka la gudboon iyana inay fashaan beerahooda lana soo baxaan wax soo saarka dalkooda kaasay kaga bixi karaan aafooyin sidan oo kale mararka qaar ugu dhici kara